taxanaha sheekada Shandaranley waxaa qoray Abwaan Axmed Cabdi Garas oo ku nool magaalada Hargeysa waxaana soo baxday 8 Juun 2012 kadibna markii uu balayax sidaa yidhi waxa uu jawaabtay bullo gabadh ah oo tiri caliyow inaadeer ciddu way nabdoon tahay colka dhiigga daadshiyo caara dhuubimay dhicin cudurrada waxlaayiyo bala culus ka yaasiin giddiga habeenkii waxa ay dhalintu jiibta iyo sacabka isku baacisaba markii uu waagu hoosta ka soo guduutay ayaa lagu kala dareeray ciyaartii goobtii dirrida ahaydna waxay u ekaatay gelgelin boodh leh cagaha baas leh ayaa lala kala dareeray habluhu iyaga oo kooxa ah ayay jihadii guryahoodu ka xigeen u dhaqaaqeen ha yeeshee ragga ninna ma aadin jihadii guryahoodu ahaayeen ee nin waliba waxa uu ka daba dhaqaaqay gabadh meel martay si uu inta yar ee habeenka ka hadhay eraya uu ula gaadho balayax iyo cooli waxa ay jaqaaftii horeba feedha ka raaceen 4 hablood oo meel wada maray 4 hablood waxa ka mid ahayd gabadh la yiraahdo Canab oo ay colaada ka hor isku ag yaaleen cudbi labadii wiil waxa ay soo qoortaanba waxa ay gabadhii Canab ku soo gaadheen dugsi u dhow gurigooda kadibna halkaas ayay balayax iyo Canab waxoogaa isku muteen markii waxoogaa jikaar iyo haasawo dhalinyaranimo oo googoos ah la isku dhiidhiibay ayaa aakhirkii balayax weedhiisii dhiibtay waxaanu ku tiraabay inan yahay waxaynu joognaa xilli xun waynuna daalanahay muraadka ugu badan ee ii kaa soo raaciyey waxa weeye waxa aan warkeeda doonayaa inantii cudbi ee kol hore sheekadu noo socotay waxaad war iyo wacaal ka hayso reerkoodiise meel uu yaallo ma garanaysa Canab intay hogatay oo dhexda madagta ah gacanta ku cuskatay ayay tidhi horta inantaadii weydiinaysaan ismaan lahayn way isu baadiyoobeen waxaase igu maqaalo ah inuu reerkoodu ka mid yahay beesha deggan idhaha xuunshaale inankoodii weynaana colaadii dhoweyd ayaa gaadmo lagu dilay balse ismaan lahayn balayax waxbaa ugu baaqi ah cudbi iyo reerkooda imankana waan hooyanayaaye alle baadida ha kuu soo dhoweeyo balayax tashigii maalintaa ku gaadhay go'aan adagoo qalafsan oo qof dooq caashaq la ibtiloobay mooyaane qof kale jariska xoornimo ula muuqanaysa waxaanu go'aansaday wax kasta ha kula kulmaane inuu subaxa aroorta ah afka saaro jihadii ay cudbi ka xigtay sidaasi awgeed awrkii uu saylada Hargeysa ku waday wuxuu kala tegay reer tuulada uu u hooyday ag yaal oo ay qaraabo ahaayeen waxaanu ku yidhi awrka seeta adag ku xidha beertana ha daaqo 2 habeen baan idinka maqnaanayaa kadibna wuu dhaqaajiyay socdaalkiisii waxa uu ahaa mid jariska xoornimo ah oo uu ku beegsanayay halka ay degan yihiin cudbi beeshoodu nin cudbi ka maqan tahay dhiirana ayaa qalbigiisu ku xanshaashaqayay jidka uu marayo foga oo cabsi badana balayax wuxuu afka saaray ay jiq ah oo ay kaga horeeyaan dad cadow u ah oo haddii ay arkaan aan bixinaynin waxa kale oo ka horeeya cadow dugaag ah iyo kaymo uu libaaxu awda ka hayo iyada oo aarka kaymaha jamalka dhabanaya ka badan yahay ayixi wartimire balse balayax waxaasi uma muuqdaan oo arrintiisu waxa weeyaan nin meeli u caddahay meeli ka madow cidna tala ma weydiine hortaa bannaan ayuu u dhaqaaqay baxda iyo dhacdo giddiga maalintii waxa uu ku jiray guucle iyo tallaabo dheer fadal ku daba yaallo xiiq tirashana isku dayin degsiimadu waxaa kala go'an weliba col joogeen ah halka uu ka yimi iyo halka uu ku socdo dab uma dhaxeeyo wuxuu fadliyaba goor habeen badh ah ayuu hulaabtay go' madow oo uu tuurta ku sitay halkaas oo qiyaas ahaan kala ah halka uu ka yimi iyo halka uu ku socdo waxaana weeyaan kayn cidla ciirsila ah oo ay sabaana nuux dad iyo dunyaba ugu dambaysay habeenka ciyowga wiiqda haya jirriqaaga dhiidha haya iyo sawaxanka shimbiraha hareerihiisa ka shalaadaya ayaa wehelo ah balayax habeenka socodkii kama jimcin
wuxuu ku tala jiraa inuu nuska hore ee habeenka ka gudbo soohdinta libaax galeenka badan. Balayax ma ahayn nin fulaynimo lagu yaqaan oo libaaxa ka baqa. Habeenkanna wax hub ah toorri buu sitay. Faralaabna waxa u ahayd dhengad baarka hore feedhan, waayo sida uu socdaalka ugu doqomaysan yahay ayuu hubkana nacas ka yahay. libaaxa meesha uu marayo ku nooli waxa uu libaaxyada jiidaha kale ku nool dheer yahay. waa libaax dhadhamiyey hilib dad, oo wuxuu ku hororoobay colaadda ka dhacday jiidda oo hilbahooda cunay meydadka raggii ay islaayeen labada col. Balayax waxa uu saqda dhexe jeerinka iyo qansaxa jilibka ku dhuftaba mar qura ayuu meel dhabarkiisa ku beegan ka maqlay shanqadh iyo si ba'an u hanqadhaysa. kadib ninkii balayax waxa kor iyo kal isku jebisay jidhidhoco ba'an. dareen cabsi ah ayaa isku gadaamay. xaadda jidhkiisa ayaa isla joogsatay. xubin kasta oo jidhkiisa ka mid a waxaa siidhi ku wargeliyey dareenkii cabsiyadeed ee saaqay. kubabka ilaa gacmaha waxa ku baahay firkanixii cabsiyeed. garaaca wadnihiisa ayaa feedha ka rugle garay wuxuu inuu libaax yahay. mar kale ayuu maqlay shanqartii hore ka yar oo u dhawaaqaysa fuuf fuuf fuuf. waxaaba weeye aar libaax oo raadkiisa sanka la raacaya. waaba bahal halaaqay oo hilibka dadku u soo hilaacayo. waagaag halkaasi ay noogu joogto sheekadii xiisaha badnayd ee Shandaranley iyo weliba ninkii balayax oo raadinaya jacaylkii gabadhii ay ballameen ee Cudbi.